shirkadda Twitter-ka ayaa ku dhawaaqday in shaqaalahoodu mar walba guryaha ka shaqeyn karaan haddii shaqaaluhu u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan guryaha. Go'aankan ayaa imanaya kadib markii ay shirkaddu sheegtay in xilliga ay shaqaaluhu guryaha ka howlgalayaan ay u caddahay suuragal ah inay tahay xilli walba inay shaqaaluhu ka shaqeyn karaan guryahooda sabab la xiriirta faafitaanka caabuqa COVID-19 balse waxay sidoo kale sheegeen in shaqaaluhu mar walba haddii ay doonayaan inay ku soo noqdaan xafiiskooda waana inagoo raacina maamirta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale talooyinka ay bixinayaan khubarada ku xeel dheer caafimaadkaasi. Qoraantii bishan shirkadda Google iyo sidoo kale Facebook ayaa sheegay in shaqaaluhu ay guryahooda ka shaqeyn doonaan ilaa dhamaadka sanadkani. Bishii la soo dhaafay waxaanu go'aansanay in guryaha si fiican looga shaqeyn karo marka haddii shaqaaluhu ay ku jiraan xaalad u sahlaysan inay guryaha ka shaqeeyaan waxaanu doonaynaa inaanu sidaa ku sii wadno ayay tiri shirkadaasi Twitter-ku. Hadalkan ka soo yeeray shirkadda Twitter-ka ayaa qaar ka mid ah khubarada dhanka tiknoolajiyadu sheegeen inay tahay barbilow cusub. Shirkaddan uu saldhigeedu yahay San Francisco ayaa waxa kale ka howlgala shaqaale gaaraya 4,000 oo qof. Waa Xamsada Baare Telefishinka Star.